السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan bilaabaynaa insha Allah taala cashiradii aan hore idinku sheegnay qayb kamid ah iyo cuduradii aan idinku sheegnay qaybteeda koobaad ayaan rabaa inaan maanta bilowno hadduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo dhageysi wanaagsan. inta badan dadku waxay ku wareeraan cuduradan masiga la yiraahdo iyo cuduradan kale caadiga neerfayaasha caadiga ku dhaco ay inta badan dadka ku wareeraan. waxaan rabaa maanta inaan idin soo bandhigo ama aan idin sharaxo waxa la yiraahdo sixirka oo ogsoontiin inuu yahay cudur jiro waa cudur la beero oo dadku ay sameeyaan cudurkaas oo ahayn cudur la kala qaado oo maaragtay cudurrada la kala qaadaan kamid ahayn laakiin cudur la beero oo dadku ayagu ay isku sameeyaan weeyaan. cudurkaas marka qaabka looga hortagi karo waxaan doonayaa marka qaabka looga hortagi karo cudurkaas in aan maaragtay wax ka inshaaro. cudurkaas ogsoontihiinba waxa weeyaan wuxuu qaybsamaa qaybo aad u fara badan ilaa dhowr iyo 10 baa la gaarsiiyaa oo culimadii islaamka ee ka qortay wax oo cilmiga tibbiga wax ka qortay waxay gaarsiiyaan ilaa iyo maaragtay dhowr iyo 10 qodob. barnaamijka ugu horeeyaan rabo inaan ka bilaabo waxa weeye sixirka loo yaqaano sixru tafriiq. sixru tafriiqu wuxuu kala geeyaa zawjka iyo zawjadiisa ninka iyo haweenaydiisa ayuu kala geeyaa. wuxuu kala geeyaa dadka walaalaha ah oo wada dhashay ayaa lagu kala geeyaa. tafriiqaas marka haweenka iyo ragga isqaba kaliya ma kala geeyo wuxuu kala geeyaa dadka shirkadda ah ee wada shaqeysto oo maaragtay ganacsiga ku wada jiro ayaa lagu kala geeyaa. khilaaf baa la dhex dhigaa dhibaato ayaa ka dhaxdhacda. wuxuu kala geeyaa oo asagana loo sameeyaa dadka walaalaha ah oo wada dhashay oo isku aabo ama dad walaalo ah oo aad isu jeclaa ayaa waxa dhaxdooda la dhigayaa maaragtay caro iyo inay isku xinaaqaan inay dagaalaan inay isnacaan iskarahaystaan noocaas ayay ayaduna u sameeyaan. waxa kale oo loo sameeyaa oo sixirkaasi lagu kala geeyaa canuga iyo waalidkiisana waa lagu kala geeyaa oo sixirolayaashu waxay sameeyaan yaani barnaamijyo waxay gaareen waayahan dambe aad maartay u tatawuray oo horumar ay ka gaareen. sixirkuna waa wax jiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu quraankiisa noogu sheegay wax la beenin kara ma ahan. sixirkaas marka calaamado gooni ayuu leeyahay gaar ahaan haweenaydu waxay dareentaa calaamado gooni ah khaasatan markii uu ninka ka maqan yahay oo zawjkeedu ka maqan yahay waxay dareemaysaa haweenayda markii uu zawjkeeda ka maqan yahay calaamada ugu weyn oo ugu horeysa waxa weeye markuu haweenaydu uu zawjkeeda maqan yahay waxay dareemaysaa farxad yaani waxa weeyaan wax kasta oo kayba u yihiin laakiin markii uu soo waco ama uu u yimaado waxay dareemaysaa cariiri madaxa xanuunaya walwal baa ku dhalanaya asagii wuxuu la noqonayaa wax kale haddii uu nin qurxan ahaa oo bulshada dhexdiisa uu ka yahay nin sharaf leh oo qiimo badan oo waxa weeyaan dadku ay qiimeeyaan oo dabeecad wanaagsan habeenkii gogasha waxa weeyaan jamaaci iyo wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay oo u baneeyay lama sameynayo. khaas ahaan waxa jirta ayaduna cilad aad muhiim u ah oo rabayna halkan ka sheego xilliga gogasha oo kale haweeneyda cudurkaas qabto waxay marka xilliga jamaaca u dhacayo oo kale haweeneydu waxay isku laabanaysaa labada lugood bay isku xiraysaa ayada oo markaas aan ogeyn awoodeedana aan ahayn ninkiina markaas dhibaato ayuu kala kulmayaa halkii loo baahnaa inuu ka helo yaani farxad inuu kala kulmo xaaskiisa. taas waxa weeyaan waa calaamada ugu weyn oo lagu garto sixir tafriiqa. waxa kale oo iyadana lagu gartaa in qofka uu mar walba dareemo dhabar xanuun wareega oo xanuuna qofka haweeneyda wareega ayaa xanuunaya khaasatan bacda al-casr oo kale xilliga casarkii wixii ka dambeeyay ayaa waxay dareemaysaa xanuun qaraway dareemaysaa hurdadii inay mar walba ay ka soo qarawdo in maaragtay wax la dagaalayaan bay dareemaysaa way aad u fara badan yihiin laakiin inta ugu muhiimsan calaamadaha ugu muhiimsan waa intaas. haddii uu marka sixirka yahay sixir la waraabiyay caloosha ayaa xanuunaysa qofka caloosha ayuu aad uga xanuunsanayaa laakiin haddii uu yahay sixir la dhigay meel kale oo tafriiqna ah qofka xanuun ayuu dareemayaa oo kaliya
ma dareemayo labalabo ma dareemayo maaragtay matag iyo waxaas ma lahan korka ayuu wuxuu ka dareemayaa xanuun fara badan meelo kamid ah jirkiisa ayaa si khaas ah u xanuunayo daawooyinkan caadiga ah markii uu isticmaalana waxba maaragtay kama bedelayaan xanuunka halkiisa ayuu ka sii jiraya calaamadahaas way fara badan yihiin waxaan rabnaa mid inaan uga soo hadalno insha Allah taala mar walbana aan idin soo diyaarino barnaamijyada noocan oo kala ah oo ku saabsan sixirka iyo calaamadihiisa iyo sida looga hortagi karo haddaba marka calaamadihii maadaama aan soo sheegnay cudurkan sixir tafriiq la yiraahdo ma leeyahay ka hortag qaab looga hortagi karo ma leeyahay cudurkan tafriiq la yiraahdo oo maaragtay sixirka tafriiqa waxa looga hortagi karaa ka hortagga ugu wanaagsan ee aad uga hortagi karto sixirka tafriiqa waxa weeye mar walba inaad joogtaysid adkaarta subaxdii iyo galabkiiba inaad adkaaru sabax wal masaa aad marnaba hilmaamin oo joogtaysid oo akhrisato taas adoo akhrisanayo ayaa hadana waxa kugu dhici karo cudurkan uu kugu dhici karaa oo waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وحول بإذنك إلهي أي كدعيان adigoo dadaalayo oo juhdi badan bixinayo ayuu hadana cudurku ku asiibi karaa balse waxa weeyaan waxaan fariinta ku siinayno waxa weeyaan waa taxadar dheer inaad sameeyso shayaadiinta qaar kuuma soo dhiiran karaan in adigoo adkaarta akhrisanayo inay maaragtay saameyn kugu yeeshaan kuuma soo dhiiran karaan waxa kale oo uga hortagi kartaa in aadan sameeynin sabab lagu sixiro oo sixirka lagu sameeyo oo adiga aadan sababti yeelanin taas waxaan u leeyahay waxa jira dad badan oo ayaga kasbanayo in sixirka loo sameeyo tafriiqa inta badan waxa sameeya dad xaasid ah oo maaragtay dadka ku xasday labadaas qof oo wada nool in ay kala tagaan oo la kala geeyo aysan ku xadgudbin oo ay ilaaliso dariska ay ilaaliso wax badan oo maaragtay dabeecadda dhaqanka islaamka in maaragtay la joogteeyo oo la agti gareeyo ay u baahan yahay barasho kaliya uma baahna dhaqanka wuxuu u baahan yahay in la agti gareeyo dadka wanaag lagu yiraahdo waqulna qawlan ma'rufan buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala haweenku waa inay yiraahdaan mar walba qowl wanaagsan marka haweenaydu haday mar walba ay iska soo hormariso ay tiraahdo hadal wanaagsan oo qofkii haduu rag yahay haduu dumar yahayba hadal wanaagsan oo xigmad ay ku jirto ay mar walba isticmaasho qofna aysan ku xadgudbin waxay ka badbaadaysaa in la sixir tafriiq lagu sameeyo ama dhibaato kale loo geysto waxaan halka ku soo koobaynaa barnaamijkii ugu horeeyay oo hordhac ahaa oo ku saabsanaa cudurka tafriiq la yiraahdo waxa marka loo baahan yahay dhamaantiin in aad si gaarsiisaan walaalihiin kale oo u baahan barnaamijkan kuna wareersan cudurkooda iyo halka laga hayo in ay wax badan ka fahmaan barnaamijta aanu soo gudbinayno oo idin la wadaagayno sida awgeed si share gareeya siina gaarsiiya walaalihiin kale qofkii qof walaalkiisa barnaamij uu gaarsiiyay qofkii asaga uu ka faa'iideystayna wuxuu leeyahay ajir aad u wanaagsan wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh